booqashadan ay wafdiga Mareykanku ku yimaadeen Somaliland waxa ay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay adkeynta difaaca amniga كنت دفاعي دفاعنا ما ورا نقول إيران اسكت دفاعي كلا قنتال كلا النبي صلى الله استغفر الله مريك قلبه ولا وحقول ما حقوش ولا اسكت ترى قنتال كمريك بدرس على لكن دفاع العيني والله وعلى الله شيء مالك استو كنت جايب قنتال إيران بتبص عضا يسوق صايغة واريا بلايا كنت دفاعي وحبسك كاشر بينه انا ما حد كاشايسه انا ما حبسك علنا يا والله حبسك علنا ثلاثة عام بيننا يا محابيس ايران اللي كايست ما يمكن واحد يسمى محابيس ايران لقى قصته ولا فيصل بوتابا انا كايستا ما نعرف محبوس الله قصته ولا بحكى خلطه ولا يا واحد اركي ايران وكنتال نشاتشو تبغى يقول حتى واحد دوس السومالان ان كنتال تبغى يقول حتى نقول تدوس ماشي اكو بابا ماشي يا الهي هتا تقانو naga taga oo aan ugu soo noqonin waxa la arkay taqaana nacasnimadu kaga daray waxa arkay isagoo leh ciro waa soo dhaweynayna waqtiga noocaana sidoo kale xukuumadda Somaliland waxa ay si weyn u soo dhaweysay socdaalkan wafdigan ka socday dalka Mareykanka maxaad soo dhaweynaysaa magataalka Iran ugu soo dhaweynaysaa miya ciro wada qoynaad ka seexato oo diyo walba aad u haydin hanagu soo jahayn madaafiicda caalamka hanagu soo jahayn ya hanagu jahayn dagaalka la taabay duutin nabad banqaatay ma dagaalka Iran nabad dooratay miya waxa ka khaldan ilaahay hada taqaano oo qof islaam tahay oo nabiga ku sallallahu alayhi wasallam barigi faqashtiina wadaga carabto oo iska tagay ruushka walaale ilaahay ku dhashay dagaalkan Mareykanka iyo Iran anagu soo jeeyn eeg walaalayeen caasimadda Israa'iil ee quwadda sheeganaysay baa sawqiiqaysa oo la kala garay ma fahmiso waa caasimadii ما واحد دوس هرقيسي بربي سمال لا بين دقيقتين ربط maxaa ka qaldan kaaga sidoo wuxuu ku leeyahay Mareykanku wuxuu tagay berberu tago uu soo qiimeynaya ay ku tageen magaalo xeebeedka istiraatiijiga ah ee berbera si ay u qiimeeyaan marka xaq muxuu soo qiimeynaya ma meeshi gantaalka Iran ku soo dhici lahayd soo qiimeynaya biya ya wala wuxuu ku sheegay wala diblomaasi mata ya nabad ma jecesha waa nabad jecesha waa nacmo horta ya واحد قلت النبض ولا الله الا سعد وتشالي بات دغال قلي مايو دغال كي رب النبض ولا سبحه كا خلطان يا متى كله waxa la jirta taqaana wadan wasiir loo diro madaxweynayaal loo diro madaxweynaha ku xeel loo diro taliyaha militariga Mareykanka muxuu naga soo doonaa anaga ya micnaheedu waxa weeye gantaalkii Iran baa daba socday ya walaal waxa ku sheekay walaal aqoonsiga iskaasta walaal iskaasta waxa uu sheegay beesha calka aqoos ma rabna walaal baqasba يا بغصب يا اكير بيرسلنا رجنا شر مدد خيودي رجنا كقارد بقتال اسكو ريدين حكو شيغا ولا ايرو markay bilaabato faan saacad oo tahay bad la galay ilaahay hada taqaan qof islaam tahay mid kale soodiga yiri nin nabadeed baan nin macaan baan ya waa kula yaabay waa sheegay mid nagu ciyaar sabab xaqa qaldan qoladii la saacad isriijin marba mid kale lagdi jiray nabadoodu wad qaato xataa nabadda ma maxaan nabad wad jeclay baad marka macalada Iran bad ugu caashiqday miya salaadintii hawar jeclay waxa uu sheegay walaalayaal 200 kun ee cod ee sanduuqa loogu riday ninkii odaga ahaa 200 kun oo gantaal bi loogu bedelo Iran intaan hargeysa qiiqin oo berber aanay qiiqin elaf way ku noqda qolkii hoosta ka xidha go'aana ka soo saara walaalayaal go'aana ka soo saara kan waxba ka qaldanay soo ninka lahayd Muuse waa nin colaadeen ma waa ugu dagaalama ma aha kan dagaal caalamiyeed buu nala doortay oo sidii la xawla wala quwwata illa billah la xawla waxa ku nibak la waxa ku sheegaa cirro waa soo dhaweynaya ku leeyahay maxaad soo dhaweynaysaa waa soo dhaweynaya waftiga waa soo hanagu soo dhaweynaya gantaalka Iran hanagu soo dhaweynaya ilaahay taqaano war waa beetiisa kuma soo dhaweyn war naga baxa Iran waxa lagu sheegay walaal Mareykanku meeshu iska mariyay walaal wuu iska mariyay ilaa wada xasan xalay mid kale waxa la yaabaa Mareykanku markii hore inoo iimalay albaabadu laga soo xidhay walaalayaal salaad xita laga muqaadi jirin mar laga dagaalkii Iran iyo Israa'iil ma bilaabay kulaha waxay xoojinayaan nabadgelyada difaaci maka Iran Israa'iil iska maka Israa'iil ay xoojin weyday wala ku xoojin karayaa miya